Hello everyone and welcome back to our YouTube with another video. Si aad uga hadasho luqadda Ingiriiska si fasiix ah, waxaad u baahan tahay marka hore inaad ku practice gareydo ama ku tababarato ku hadlidda luqadda. Haddaba arday badan ayaa ina weydiiya, macallin sideen ku heli karaa qof aan luqadda kula practice gareeyo maadaama Soomaaliya aan luqadda Ingiriiska looga hadlin. Haddaba haddaad ka mid tahay ardayda qaba cabashada noocaas ah ama mar uun ku fakartay, halka muuqaalkan ayaa ku haya ee daawasho wacan. Muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa saddexda application ee ugu wanaagsan ee aad si lacag la'aan ah u isticmaali karto si aad practice ula samaydo dadyo kala duwan oo ku kala nool dunida daafaheeda. Ababka waxaan u kala darajayn doonaa sida ay u kala wanaagsan yihiin annaga oo ka soo bilaabayna ka saddexaad ee ugu wanaagsan ilaa kan koowaad ee ugu wanaagsan aan ka gaarno. Kuna darso oo abkan ugu dambeeya ee koowaad waa kan aan aniga ahaanteyda ugu jecelahay una isticmaalo si maalinle ah, kaa oo aan ku leeyahay asxaab fara badan oo aan waqti ku wada qaadano halkaa. Nambarka saddexaad waxaa igu jira applicationka la yiraahdo Real Life English. Applicationkan waa application aad u wanaagsan, kana mid ah waana applicationkii ugu horreeyay aan anigu isticmaalo markaan speaking aan bilaabayay inaan ku hadlo. Applicationkii ugu horreeyay aan isticmaalo wuxuu ahaa applicationkan lagu magacaabo Real Life English. Applicationka haddaba wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, howlo badan ayaa lagu qaban karaa. Xaggan sidaa uga jeedaan waxaa ka muuqdo wuxuu leeyahay features kala duwan ama qaybo kala duwan oo aad ka isticmaali kartaan, laakiin anaga hadda waxaan xoogga saaraynaa waa xagga iyo speakinga. Qofka ardaygu markuu rabo inuu hadlo si uu u helo dad uu la hadlo ama arday kale ama dad kala duwan oo dunida daafaheeda kala joogo si uu la hadlo. Haddaba stepka koowaad oo step 1 ah, talaabada koowaad marka speakinga rabtid inaad sameydid, waxaad aadaysaa xagga speak ay ku qoran tahay si aad u heshid qof aad la hadashid. Marka hore xagga ayaa ku dhufanaysaa speak, then step 2 sidan ayaa kuu soo baxayso. Waxaad samayn kartaa kamerada haddaad rabtid waa on ama off, labadaba waa ka dhigi kartaa. Hadda aniga off ay tahay meeshaan, haddaad doonto on waa ka dhigi kartaa. Xaggan topic ayaa sii dooran kartaa aad ka sii hadli lahayday. Haddii aad rabtid inaad toos u gashidna waxaad ku dhufanaysaa xaggan ay ku qoran tahay find partner oo ka dhigan raadi qof kula hadlo partner ah, alashaan wada sheekaysiga qof kula qaato raadi. Xagga ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa, and then step 3 qaybtan ayaa ku soo baxayso. Xaggan meeshan ayaa ka cancel garay kartaa haddaad rabtid, then kadibna sidan ayuu kuugu soo xirmayaa qofku. Haddaba applicationkan wuxuu u shaqeeyaa hab sida dadka online gamingka ciyaaro oo kale. Waa ku dhufsanaysaa, si toos ayuu qofku kugu soo qabanaya. Kaliya saddexda talaaba maraysaa. Xaggan ku dhufo marka hore, kadibna find partner ku sii dhufo, kadib asiga kuu soo qabanayo qofka kugu soo xirayo. Step 4 waa stepka ugu dambeeyay. Qofka aad soo qabtay waxaa la yiraahdaa Alama oo India ku nool, sawirkiisa waa xagga ka arki kartaa. Wadanka uu ku nool yahay xaggaas ka arkaysaa iyo sawir iyo muxuu ahaayay magaciisaba. And then haddaba applicationkan wuxuu leeyahay waxaad kaliya xadidaad uu leeyahay, xadidaadiisu waliba aad u badan tahay. Qofka isla sheekaysanaysaan waxaad wuxuu ku xadidan yahay kaliya 4 daqiiqo ayaad haysataa inaad la hadashid. 4 daqiiqo kadib wada sheekaysigu wuu go'ayaa. Laakiin waxaa kaloo codsan kartaa 4 daqiiqo kale ayaad codsan kartaa. Xaggan waxaad codsan kartaa in 4 daqiiqo kale aad dheeri aad la sii hadashid. Hadduu qofku markaa asagoo aqbalo 4 daqiiqo dheeriga oo kale ayaad helaysaa. Kadibna xagga ayuu wada sheekaysigiinu ku soo dhamaanayaa. haddana marka qof kale haddaad raadinaysid waa inaad speakta un kusoo dhufatid, qof ayuuna kuu soo qabanayaa un. Meel aad follow iska dhigi kartaan ama malahan ilaa ay inaad isku sheegtaan oo marka Facebook ama aad kala reebataan maahane si kaloo dambe isku heli kartaan ma jirto. Applicationka xadidaada ayuu leeyahay. Applicationka labaad ee aan isticmaalo ama aan ka mid ah applicationadan ugu jecelahay waxaa la yiraahdaa Hi Local. Haddaba wuxuu leeyahay asaguna si applicationka hore aad iyo aad uga duwan yahay, farqi weyn ayaana u dhaxeeyo. Applicationka haddaba kaasi meeshuu ahaa inaad hal qof one on one ay ahayd, hal qof unaad arkaysay, kan waa group. Sidoo kale wuxuu leeyahay sidii social media aan isticmaalno kale, waa qofka isfollow garay kartaan, isla xiriiri kartaan, waa isfollow garay kartaan oo isla socon kartaan, si gaar ah xitaa waad u hadli kartaan. Xagga oo kale chatting waa kana meeshaan uu chatting leeyahay. Anagu laakiin meeshaan u socono waa speakingka.
haddaba stepka koowaad markaa rabtid inaad dad qof aad la hadashid raadinaysid xagga ayaa ku dhufanaysaa meesha wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano tableska step 2 ay kugu soo baxayaan waa kanaha tableka koowaad waa kan tableka labaad waa kan table 3 waa kan hoos ayaa usii socon kartaa ilaa iyo tableka aad doontid aad ka helaysid table waxay u yaqaanaan waa meesha annagu ka dhahno qolal oo kale live tiktok oo kale haddaad daawanaysid qol ayuu soo furay qol ayaa la sheegaa soo ma xagga ayagoo table ay u yaqaanaan haddaba tabladaas kala duwan ayaa midkaad doontid ka dooranaysaa and then waxaa ku dhufanaysaa mid waliba wuxuu leeyahay qaybtaa listen ay ku qorantaa jirta listenka ayaa ku dhufanaysaa saa ayaa gudaha ugu gelaysaa gudaha markaa gashi step 3 sidan ayaa kuu soo baxayso qofkan waa qofkii hostiga ahaa oo qolku u furnaa haddaba xaggan markaa sidaan u timaadid markaa rabtid inaad hadashid waxaad ku dhufanaysaa xaggan kursiga xagga ayaa dooranaysaa xaggaa markaa ku dhufatid qofku asaga ayaa markaasi ku aqbalayo hadduu ku aqbalo stageka ayaa sidaa ku fuulaysaa oo nambarka 4 xaggan qofka stageka ayaan saarannahay then markaa rabtid marka inaad la hadashid waxaa ku qasbantaha inaad furatid microphonekaaga inaad mute-ka ka qaadid ama aad unmute dhahdid ayaa ku qasban tahay xaggan ayaad ama mute iska saari kartaa ama aad iska qaadi kartaa xaggan markaad joogtid qaybtan waa dadka hadlaayo laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay meeshan xaggan haddaad soo geshid waad iska dhegeysan kartaa haddaadan rabin inaad hadashid xaggaana iska dhegeysan kartaa dadku waxay ka sheekaysanayaan then markaa la qabsatay kadib aad dartid ayaa waxaad codsan kartaa inaad meeshii soo fuushid markaa haddaa sidoo kale aad hadalkaaga dhamaysatid rabtid laakiin inaadan tableka aadan ka bixin ama qolka inaadan ka bixin haddaa rabtid xaggaa meesha yaraa ku dhufanaysaa hoosa usoo degaysaa markaa haddaba haddaa rabtid marka inaad xaggan waa markaa rabtid inaad table dad ay soo dhigteen meesha aad ka hadashid oo aad ka qayb geshid laakiin adiguna sidoo kale waxaa kuu furan inaad tablekaaga gaarka ah aad furatid xaggan ayaa ku dhufanaysaa meeshaan blast ay ku qoran tahay haddaad ku dhufatid tablekaaga gaarka ah ayaa furanaysa oo adiga host ka tahay meesha qofka uu joogo kale aad joogaysid oo aad dadka ku casuumaysid midkaa rabtidna aad aqbalaysid kaa doontidna haddaad doonto iska diidaysid qofkii markaa hadalkiisa ama aad bogi weysid ama aad kick out dhihi kartid oo ka saari kartid meesha applicationka marka waxaa la yidhahdaa asagana high local sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamijyo kala duwanoo fara badan ayuu leeyahay adigu nafsadaada usoo arag insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waayo applicationka koobaadee ah midkaan anigu aad ku isticmaalo had iyo jeer si maalinlaha aan u isticmaalo haddii aad laga yaabee aad applicationka isticmaashidna lagaba yaabo inaad ugu arki doontid waxaa la yidhahdaa hello talk waa number 1 midkii ah hello talk ayaa loo yaqaanaa wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u fara badan ayuu leeyahay iyo waxyaabo kala duwan wuxuu iska agdhow yihiin laakiin kii hadda ugu dambeeyey ee la dhahayay high local ayay qaab ahaan ismatalaan laakiin wuu kasii duwan yahay asaguna haddaba si aa marka u heshid qof aad la hadashid marka koobaad step 1 waxaad ku dhufanaysaa xaggan voice rooms ay ku qoran tahay ayaad dooranaysaa step 1 kan xagga meeshuu ka lahaa table ay ugu magac darayeen qolalka la soo furanayo kan asaga waxaa loo yaqaanaa voice room ayaa loo yaqaanaa voice room markaa rabtid xaggan ayaa soo dooranaysaa marka hore step 2 haddaba waa tan xaggan ayaad imaanaysaa xaggan markaad timaadid sidii kii hadaayay oo kaleba waxaa ka dooranaysaa qolka aad rabtid inaad geshid hoos ayaad u socon kartaa ilaa ayaad ka helaysa qolka aad rabtid kadibna click ama waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid then step 3 xaggan ayuu ku keenayaa xaggan markuu ku keeno waa kan xaggan ayaa jooga markaad rabtid marka inaad codsatid inaad stageka fuushid oo aad hadashid xaggan aad ku dhufanaysaa meesha iyada ah flaartayga ay soo qabanayso xagga ayaa ku dhufanaysaa then sidii kii kale isna waa la mid qofku inuu kusoo aqbalo waa qofku markuu kusoo aqbalo kadib marka ayaad waxaad fuulaysaa stageka ayaa step 4 ah sidan ayaa stage ku saaran tahay haddaa rabtid marka inaad hesho asagana sidoo kale waxaad dooranaysaa xaggan microphoneka ayaad mute iyo unmute iska saari kartaa haddaa rabtid inaad furtid waad ku dhufanaysaa inaad iska xigtid haddaa rabtid sidoo kale waad ku dhufanaysaa sidoo kale asagana sidaan sheegnay wuxuu leeyahay qayb listening ah dadka kore way hadlayaan ay ka dhigan tahay hadday doonaan laftoodu adoo kor jooga haddaad doonto waa iska dhegeysan kartaa laakiin marba haddaa codsato inaad kor timaado waxaa fiican inaad hadashid haddaa rabtid inaad dhegeystid marka qaybtan hoose ayaa iskaaga sugnaanaysaa marka qaar waxaa laga yaabaa qofku inuu asagoo laftiisa uu ku invite gareeyaba uu kugu casuumo inaad voice roomkiisa aad stageka aad timaadid marka haddaad doontona waa aqbali kartaa haddaad doontona waa iska canceli kartaa and sidoo kale applicationkan wuxuu leeyahay voice roomka inaad adigu laftaada aad fura kartid meesha hadda dad voice roomkooda aad soo gelaysid adiga laftaada ayaa mararka qaar furan karaayaba voice roomka oo xaggan ayaa ku dhufanaysaa markaad rabtid inaad voice room aad soo furatid kadibna adiga ayaa naqanayaba hostiga qofkan hadda meesha jooga qofkan ayaa hostiga ah
oo cashaan qolku uu furan yahay qofku qolku u furnaa adiga naqanayo dadka aqbalaya ama midka doontana ka saarayay xitaa haddaad doontid kick out ayaa ka saari kartaa qofka qaabkiisa u bagi weysid waa iska saaraysa asaga dhanba gabigiisa sidoo kale wuxuu leeyahay luqadaha kala duwan English iyo luqadaha kala duwan ayaa raadsan kartaa xaggaan oo kale isagu wuxuu ku leeyahay live voice room kan wuxuu uga duwan yahay uu leeyahay waxa waaye live ayuu leeyahay cashaan dad muuqaal had voice room kaanu kaliya waa dhageysi laakiin daartid muuqaal ahaan inaad dadku aragtid xagga ayaa ku dhufsanaysaa live hadda voice meeshu ka joogo live ka ayaa ku dhufsanaysaa kadibna waxaa arki kartaa live kala duwan oo dad ay ka soo qayb galayaan midka ku dhufsatay kadib sida ayaa u galaysaa laga yaabo dadka qaar inay live kala fatiisa xataa ay kamarada iska xireen laakiin inta badan kamarada dadku way u furan tahay xagga haddana qayb kale wuxuu ku leeyahay drama dramadaasi haddaba waa filimaan ama aflaam ayaa ku jiraan aad ka daawo kartid laakiin wuxuu leeyahay xadidaad applicationka isagoo sidoo kale wuxuu leeyahay xadidaad oo ah waqtiga aad isticmaali kartid haddii aadan VIP member aadan ahayn oo aadan cashaan lacag bixinin oo VIP aadan dooranin wuxuu leeyahay xadidaad oo voice room kan oo kale hadda ka soo qayb gashid kaliya waxaa haysataa uun 1 saac iyo bar 90 minutes ayaa haysataa 90 daqiiqo kadib uu iska kaa xiraya ma sii hadli karaysid laakiin marka adigu voice room kaaga aad soo furatid oo xaggan kusoo dhufsatay voice room ka adu aad leedahay waxaa la sheegaa ilaa iyo 4 saacadood ilaa iyo inaad sii hadli karaysid oo uusan xadidaadiisu aanay dhaweyn live-ka sidoo kale asaguna waa la mid haddaa live ka qayb galaysid asagana wuu ku xadidaya haddaba xagga ayaan kusoo gabagabeynay saddexda application ee ugu wanaagsan ee aan loo isticmaalo speakingka si aad u heshid dad aad la hadashid saddexda application ayaad isticmaali kartaa haddaba qaybta ugu dambeedo haddaba commentiga nagula wadaag saddexda application ka soo hadalnay keebaad marka koowaad isku dayi doontaa oo tijaabi doontaa haddii ay jiraan applicationo kale oo aad hore u isticmaashayna nala wadaag iyagana sidoo kale applicationada sida ardada kalena ay uga faa'iideystaan and thank you very much have a good one